xarunta wasaaradda deegaanka Puntland ee Garowe ayay ka qabsoontay munaasabada ay xilka kula kala wareegeen agaasimaha cusub ee wasaaradda deegaanka Puntland iyo agaasimihii hore ee dhawaan la isku bedelay Dr. Cabdirasaaq Bogcad agaasimihii hore ee wasaaradda deegaanka ayaa ugu horeyn sharax dheer ka bixiyay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xafiiska joogay iyo waliba talaabooyinka guud ee dhinaca horumarka wasaaraddu u qaaday waxay xafiiska ku leedahay hanti ah maanta waxay leedahay xarunta aad joogtaan quruxda badan waxay leedahay xafiiska halka ku yaalo ah gobolka Nugaal gaalkacyo xafiis baa ugu yaal aad u weyn oo wakaaladda qaranka ay ka dhaxashay buuhood la xafiis baa laga dhisay qardha xafiis baa laga dhisay dhahar xafiis baa laga dhisay baargaal xafiis baa laga dhisay sanadkan kaliya oo 2015 dhamaadka ah in ka badan 200 oo goobood ayaa waxa lagu soo hormaray kormeer lacagtaas markii la soo wada geeyo waa 6 milyan 7,945 waa waxa diyaarsan oo wasaaraddu anytime any moment u imaan kara way Muno Daahir Dalmar oo ah agaasimaha cusub ee dhawaan wasaaradda loo magacaabay lagana soo bedelay tanarimaha gudaha ayaa ka codsatay hoggaanka iyo shaqaalaha wasaaradda deegaanka inay si hagar la'aan ah ula shaqeeyaan si waajibaadkeeda shaqo ay u gudato waxaan jecelahay in aan ku wada shaqeyn doono teamwork qof kamid ah aad adinku shaqada bari doontaan maadaama aan maaragtay wax badan xog badan aan ka hayn adinkaan laga rabaa in aniga wax ii sheegtaan aniga ii hagtaan aniguna aan wixii maaragtay mas'uul ah ama mas'uulnimada ah in aan niga caawiyo wasiirka wasaaradda deegaanka duurjoogta ee dalxiiska Puntland Cali Cabdullaahi Warsame ayaa dhankiisa soo dhaweeyay agaasimaha cusub isagoona xusay in looga baahan yahay si aan boqaadista shaqooyinka baaxadda leh ee agaasimihii hore hormuudka ka ahaa waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo agaasimaha cusub ee wasaaradda deegaanka Marwe Muno kuna soo dhaweeyo wasaaradda deegaanka in insha Allah taala si dhow aan ula shaqeyn doono aadna ula soo dhaweyn doono محمد محمود حليه هون كيبل TV Garowe